kooxda Taliban ayaa ku amartay dagaalyahanadeyda inay weeraraan mas'uuliyiinta iyo ciidamadii ammaanka ee maamulayay doorashooyinkii baarlamaanka ee bishan ka dhacay dalka Afghanistan. bayaan ay maanta soo saartay ayay kooxdani ugu baaqday musharaxiinta iyo codbixiyayaasha inay qaadacaan doorashadan, iyagoo ku adkaystay in doorashadan lagu sharciyeynayo siyaasiyiinta ay soo dirsadeen ciidamada haysata dalkaasi. doorashadan oo muddo dib loo dhigay ayaa lagu wadaa inay dhacdo 20ka bishan Oktoobar, waxaana ka qayb galaya 2500 musharax oo 418 ka mid yihiin haweeney. waxay u tartamayaan 249 kursi oo ka tirsan aqalka hoose. dawladda Afghanistan ayaa 14,000 oo askari iyo boolis ugu talagashay sugidda amniga doorashada si loo xaqiijiyo ammaanka codbixiyayaasha. sidoo kale 10,000 oo ka mid ah ciidamada NATO ee dalkaasi jooga ayaa ballan qaaday inay gacan ka geysan doonaan sugidda amniga. Yaasir Axmed Cabdullaahi Asrashka, muqbayaha caalamiga Somali News, gudaha caasimadda Hargeysa.